dawladdu oo aanay dhicintii soo waxaana la ogyahay in Soomaaliya ay kala saxeexdeen in laga bilaabo salal oo waqooyi galbeed la sameeyo dawladda waqooyi galbeed maxaa loogu soo bandhigi waayay Djibouti Hargeysa oo caasimada in lagu soo bandhigay in Boorama lagu soo bandhigay in Burca lagu soo bandhigay in Berbera lagu soo bandhigay maxaa sayla arinta keenay in buuga lagu soo bandhigo arintaas waa geopolitical wala politicizing wala la fahmaya nin kasto garaadli uu garanaya taa waxaan ognahay iyadoo taasi ay jirto shalay mudaharaad kalka laga sameeyay waqtigii musabiixi ee kacdoonada ahaa maxaa looga arki waayay xeebaha sayla iyo degmooyinka hoos yimaada iyagoo laga mudaharaadayo oo ciiso mudaharaadayaan war adan waxba yaa la isu qarin sayla waa dhulkeena waan ku dhaadanayna haddii aanay ka fiirsanayn oo aanay eegayn dastuurkeeda waxa ku qoran waxay noqonaysaa in ay timaado dhibaato ka weyn ummadda iyo dalka iyo diintaba waxa u dhaartay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ciro waxaanu ku soo saarnay Ciro si mugle waxaanu soo saarnay hanaanka dawladnimo ee casriga ah waxaanu ku dooranay in أو دفاع dhulka oo ka difaaco xuduudaha laba inuu sumcadda kor u qaado Somaliland oo ka maanta ka shaqeynaya dibadeen arkayno dalka gudihiisu mar walba waxay u baahan in laga hadlo saylacna laguma wada gorgortami karo 1848 waxaynu ognahay Gadabursi Bridge and Bridge Treaty inuu jiray oo Europeanku iyo dawladihii horeba waxay og yihiin cidda ay dalka ugu yimaadeen cidda ay deegaanka ugu yimaadeen dispute ma noqon karta saylac marnaba dhagaxayga ma soo gali karto waxaana muhiim ah inay ka fiirsato dawladdu oo aanay dhicintii soo shalay toole weyn u heesayna